daayaha ku raaco dhulka ay wax ka moogin dhalinyaro dhulkeennii wayna u noqonaa كل مال بانكو دحسناي يا قلتي قوي What's going on, girl? Oh my God! Really good, girl. How are you? I'm good, girl. How was the wedding? Tell me about the wedding. I can't even imagine. It was really good. A lot of people was there. All the niggas was there, so No way. beautiful. That one was good. Oh my God, which niggas were there? Ali was there. Hassan was there. So, and it was. Hey? So it was good. Oh my God, listen. أروس عاوة بان أصعدا أو OYN. You kidding? You have to go with me. For sure. ولا ده عدد بدي سوق سبيد كيس أحد كان بعمل Okay. For sure, but we don't have a gas. What's up with the gas man? gas قاعدة حشيش قاعدة وحالة قلبيان. Sure, we down. والسلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام. أرسكو ورما والصوت. What's good? أنا إلهي داعي سنة ورحت أنا في شورت اسمه عنا بالك أحد الصومالي هذا اسمه في عنا هذا الصومالي فاضل مدة كمان مدة اللي بعد اللي يروي ميدان أوجين إن مجالنا نقسمي أو مركز سوق أبي مجلس اللي يرهدو OYN مركز الديرين مركز مجلس الديرين اللي يرهدو أوجين يو نتورك كاسو دقائق وحقوقك إيه كتشيك ومدينة دليل وكوه بسدي جميسك جماعة كلوها يمالي والب What the I think they talking about Haiti. Haiti. ku gubaa shacabkeenne garaajiin xuma baadhi baan u guuriya aroos baan u gablin waa waxayna galayne ila keeno go'an ahayn geygeena xorayne Blue is ready. Way yellow is not up. What I match for hey جوجي dhageysta waa eesh ala naas walad ibn halal ma gaari kartaan horta afka xaga uga jeediya kun sano dambe hada tababar soo qaataan iyadoo kale ma noqon kartaan talabaad mideeda labaad bal dhalinyaro anigana ay dhageysta wax yar baan rabaa inaan idin sheego waana yar dhalintii dalkayga ay dhamaanteen waxaan nahay kuwa dharag la jiifo dul shisheeyay yimido dhaldhalaalka raaco doohano wax mooge detailka noloshiyo dibka jira dalkeenni waa mid laga dhawaaqay dhalaankiyo haweenkii wali waa la dhibayaa damac iyo rasaasba duunta loogu shubayaa madfac dhinaca goostiyo hubaa lala dhacaaya sidii dhibica roobku dhiigii qulqulaya daawic iyo meydka dhulka daadsan maalmo dhammaan habar dugaagiyo ay dhulwaagu ruugaan ruuxii dhaqaaqe dhiigiisu diirana jeelkaa la dhigaya ee hadal iyo dhammaantii nafsi waa madaafe waa deeman ciidu yaan ku dhowranaynaa dhalinyaro walaalayaal ani waxay la qumo waxaad sheegaysaa intaad iska daysaan inaad waddankiina u soo noqotaan inaad ilaahay wax idin fahansiiyo faatixada idin soo maraynaa Make sure we go to the park. waxaan baa ku dirayaa daayarteena badane daafaha adduunkiyo dibadaha ku noole degdeg iiga gaarsii waxaan muddo dadaayay niyadayda ku duubnaa ayaan daah ka rogayaa degdeg iiga gaarsii barbaartii dalkaygow niyadsame dadkeennii dulli bay ku sugayiin dhagax buur dusheediyo dahariyo wardheeriyo daafihii shilaabood dadkii waa la laayaa waa su'aal da'weyne miyaydaan badiirayn diirna xaaba idinku ol
daa'imow allahayow adaa deeqda bixiye niyaddooda soo dayr idinkuna dadkaygow waan idiin dardaarmiye isku duubni muujiya oo dulliga iyo gumaysiga diinta dhaha dhammaantiin bal hadda anaa idin sii raacinaya maama arkays ها وحش شيء ما كيسي وكوا دلبي حرينا والله بالله وعجيب لا سو هنونيو بلا يكلم كهلين جيد يا قاسي وحنا قرنين ماركيس ترين ديري ساري نغا هوريا 2 ساعه ترين بساريين ما لسه ما بوسه كده شغله مامتي وانا صنايا وبايكا قدروا دبدل ولي وراهم حاضر وراهم ورا صلاة مسلم كان نقول صلاة السلام عليكم والله يسلمك السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام حاضر ناس كويسة ما وسكت ما بين الناس حاضر كويسة ولا دي كانوا تقولوا هو قطن الله ندول هذا كل شيء تكسي أمي ما دين في سعودي كبت كبر السلام عليكم مشاكل الله وكلية بريء ولا ما إيه ولا ما سوي سوي قبل إلها سؤال من warheebe qabandii baan soo doonay dadka iyaga dumoo baan u dadaalay islaamka duliyo maxaa tahay waxaan idin sheegay dalkii aynu lahayn dul hadduu rogmanayo dabana wax ka siinay dumar baa adigo dariiqooda ka wacashay eedadii hore dhegaysta dalkii aynu lahayn dowladaan hareerayay dimuqraadiyad baa u shaqayso nimcadayni dadnida daboolay afkiina shiina daaha ka qaaday gaaska lagu faraxshaa dibirkaad garanaysiyo dooxadii nabadiid iyo dul weyn oo ka fogayna laamiyaa laga dooxa gawaadhidu waa iska dareen diyaaradu waa haba sheegay aniga ku dalxismo ka qadaynay damo daharaan uga duulay shilaabaan ku dambeeyey shilaabaan ku dambeeyey sheekadaan mu helaynay sheekadaan mu helaynay shiniloo ka fogay shiinaha ku bartaya shacabkeena lahaa calashaan hada garaab waa lagu kala waraa dunidii horeetiyo darwiishkii markuu degay ilaa dhowrka maanta dadka qaar waxaa jira aan damiir lahayn oo dulliga iyo gumaysiga diinay aan dhahaynin aan ku degiyo degsiyo i dhegayso doorxume wayaamaha haddaad mooday inuu yahay dugsi iyo danteed dab intuu shidaabo dalab adig ku siiyaaye dahriya dalkii aan lahayn buu tarab ku daaraaye dumarkii carruurtuu duutiyaa abide dambinin aan ka gelin buu daban u daajaaye daqaasi ina aadamaa loogu dawgalay markuu booxooni badaaye ee bahay dah ka qabeeya شفتانا كارم لا بزي شفتانا بزي شفتانا حكا يلا حكا انا مغير حنك يقول انا انجينير في هذا شنطه سومري هذا هو شنطه وعرقات ساريه ديكس قاعد يقول انا موجود دبولي طفش لا يسعاو جميعها أونلاين in California عبد الفتاح كريم افتح كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I think they say save the best for last. So San Diego being the best, we had to go last. برضه أنا حالي إن أول ما حكيت قليل ترى أوغادية يصير شرفت لك شفت سكول تيمي مركز لوان الحارة باينا تيجي دنيا لذا أوغادية from Minnesota for their hard work and dedication for making this event possible. عرب أنا وحيد تحضر أول in San Diego اشتغل قبل إن شاء الله اشتغل قبل دون سنة 2010. أول in San Diego was established when سنة 2007. The reason why established is إنه أروك النقطة إنه أروك قرب استعداد حتى ودني كفرنت وقاعدين يو هلك وقاعدين إنه يو نبتي ورياش فرق ناس كنوشوا إنه وحلا روحه طريقة إنه أوتو. For the last 2 years, OYN San Diego has accomplished many things. Some of these accomplishments include رواية أسرة 2008 قبلت اللهم تعالى دمني يا China.
faa'iidada riwaayadda ka soo baxday waxay toos ugu tagtay naftinuuriyaasha iyo ummadda dhibaataysan ee reer Ogaadenya. The third accomplishment of OWA and San Diego had the mobilization, the organization team, shirweynihii sanadaadka ee jaaliyadaha Ogaadenya ay isku imaanayeen. waxaa shirkaas ka soo qayb galay ilaa 15 jaaliyado oo ka kala yimid stateyaal iyo countryyaal kala duwan. waxaa kaloo ku guuleysanay in aan xiriir la yeelano jaamacado ugu waaweyn ee ku yaala San Diego in ay klaysayaashooda ka dhigaan historyga iyo dhibaatada ka socda Ogaadenya. Lastly, on April 8, 2010, waxaan qaban doonaa shir weyn oo socon doona 1 week oo lagu qaban doono University of San Diego. shirkaas waxaa ka soo qayb galaya organizationyaal fara badan oo ku xisaabsan human rights. Those organizations include Amnesty International, Survivors of Torture, Palestinian for Justice and Peace, just to name a few. These organizations will solely talk about the struggles that our people face on a constant basis. In conclusion, we want 2010 to be the year of change, the year we gain our freedom that our grandfathers and fathers died for. Therefore, what we must do is take part in American politics in order to solve the never-ending crisis in Ogaden. Coming to the conclusion that our brave men and women are putting their lives on the line, it is our duty as Ogaden youth to shed light to their struggle.